waxaa magaalada Abu Dhabi ee caasimadda waddankan isku taga Imaaraadka Carabta ku soo gabagaboobay shirkii lagaga hadlayay sidii loo maalgashan lahaa waddankeena Soomaaliya. shirkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha dibadda Imaaraadka Carabta ayaa waxaa dhanka dawladda federaalka Soomaaliya u matalayay xubno wasiir uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda dawladda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdisalaam Hadliye. markii uu soo gabagaboobay shirkani looga hadlayay maalgashiga Soomaaliya ayaa warbaahinta qaranka Soomaaliyeed waxay ka weydiisay wasiirka arrimaha dibadda iyo maalgashiga xukuumadda federaalka Soomaaliya wixii lagu heshiiyay. waxa maanta shir baan iskugu nimi shirka waxa lagu qabtay wasaaradda arrimaha dibadda Imaaraadka waxa ka soo qayb galay madax badan oo Imaaraadka oo ka socota xagga dawladda iyo xagga baamushtarkaba. annaga waxaan ku nimi 6 minister iyo minister ku-xigeen wasiir ku-xigeen iyo 20 ambassador qof oo kale oo baayac mushtari iyo dawladda bay iskugu jira. waxaan ka wada hadalay sidii maalgashi Soomaaliya loogu sameyn lahaa labada wadan ay isku kaashan lahaayeen. haddaba waan iskaashanaa waxaan iska kaashanaa xagga security-ga waxaan iska kaashanaa xagga dhaqanka waxaan iska kaashanaa xagga oo dadka Soomaalida oo halkan ku nool. imikana waxaan rabnaa inaan sare u sii qaadno oo sidii khayraadka waddankeena ku jira beeraha xoolaha kalluunka portska aan leenahay oo xeebaha aan leenahay u maalgelin lahaayeen. airport cusub sidii xamar loogu dhisi lahaa sidii loo sameyn lahaa wadooyinka keenaya khudradda iyo waxa laga beero shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe iyo banaadir iyo baaya bakool sidii loo keeni lahaa suuqyada loona soo dibadda loogu soo saari lahaa. waxaanu ka wada hadalnay sidii dawladda looga caawin lahaa broadbandka waxa la yidhaahdo ICT da baanagtay information technology-ga oo dawladda loogu sameyn lahaa loogu habeyn lahaa. waxaan ka wada hadalnay wax muhiima oo labada wadanba u muhiima. waa diyaaradda Fly Dubai iyo Al Arabiya. halkana waxaan rabaa waa laga shaqeynayaa sidoo heshiiska horaan uu galay oo labada waxa galay dawladood in labada aviation imikana waxaas ku soo biiray kambaniyadii oo diyaara. heshiiska hore aan galay wuxuu keenay inay Hargeysa ka soo duusho oo timaado Dubai. imikana waxa weeye Muqdisho maybe marka ku xigtana inay noqoto Kismaayo iyo Baydhabo iyo Boosaaso. Cabduqaadir Axmed Sheekh raadiyaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Abu Dhabi.